السلام عليكم صاحبي soo dhawaada meel walba waa dunida caladeeda ka joogtaan ma garanaysaa ummatu Muhammad ruuxii ugu horeeyay fallaar ama leeb alla daraadii u gama hadii aan ku weydiiyo maxaad ku jawaabaysaa ma garanaysaa ruuxii u horeeyay ee dhiig alla dartii u daadiyay oo ummadan kamida ma garanaysaa ninka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku faantamay oo yiri kali waa abtigay ee midkiin ha i tusiyo abtigi hadaba saxaabiga jaliilka qisadiisa ayaan kula wadaagayaa maanta soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa taariikhi show hadii tahay markii ugu horeyso aad soo booqato dhammaan baraha bulshada ee wankaynu ku leenahay taariikhi show soo follow gareey YouTube soo subscribe gareey TikTok Facebook meel walba nagala soco soo dhawaada saaxiibayaal saxaabigani waa mid kamid ah rag ayagoo nool jannada loogu bishaareeyay ee la yiri ahlu janna ayaa tahay asaga oo nool oo dunida dusheeda jooga hadaba saaxiibayaal saxaabigani asaga ayaa nooga waramaya qaabkii uu ku islaamay ee qisada islaamadiisa dhab ahaantiina waa mid ka heli doontaan oo cajiib saxaabigan aan idinkaga kala dhaxbaxo asaga iyo qisadiisa waxa la yiraahdaa saxaabigan Sa'd ibn Abi Waqqas hadii aan ku sheegay magacaas dhab ahaantii waad garanaysaa hadii aad tahay qof taariikhiyan hadaba waxa uu yiri Sa'd intii aanan islaamin 3 habeen ka hor waxaan ku riyooday aniga oo dhex dabaaranaya mugdi aad u gudcura oo aan waxba la arkaynin ilaa uu meel geesa iga bidhaamay oo iga iftiimay dayax hadaba dayaxii xaqiisa ayaan u dabaashay halkii dayaxii xaqiisa markaan u dabaashay ayaan waxaan ku arkay 3 nin oo aan garanayo kuwaas oo kala ah Abu Bakr Siddiq iyo Ali ibn Abi Talib iyo ninka la yiraahdo Zayd ibn Haritha deedna waxaan weydiiyay ilaa iyo goormee halkan joogtaan waxana ay igu jawaabeen waxay ka hor ayaan nimi waagi markii uu ii bariyay ayaa waxaan gartay in xaalad adag aan xala galay isla waqtigiiba waxaan maqlay rasuulka oo dadka ugu yeeraya fariinta Ilaahiga iyo in la islaamo hadaba waxa uu yiri Sa'd waxaan u imi rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo togaga magaalada kamida jooga oo halkaas dadka ugu yeerayo si qarsoodi ayaan ugu imid deedna waxaan weydiiyay waxa uu dadka ugu yeerayo waxaan uu ii sharxay fariinta islaamka iyo in laga tago asnaamtii aynu caabudaynay na la aado ilaahay kaligii la caabudo oo wax kale aan loo shirki sameyn kadibna waan islaamay oo waxaan ku dhawaaqay shahaadateyn hadaba daawada Sa'd waxa uu ahaa islaamka ka hor nin dhalinyaro ah oo kamid ah dhalinyarada reer Makko mana ahayn mid ku mashquula sida waxyaabaha ay dhalinyaradu ku mashquulaan oo ciyaarta iyo lahwiga ah Sa'd dhalinyaronimadiisii wuxuu ku qaatay sameynta falaaraha iyo ku tababarashadooda iyo hagaajinta seefaha qalabka dagaalka ayuu ku tababaranayay ninka asaga waxaad moodaa inuu naftiisa u diyaarinayo maalin weyn oo soo socota hadaba daawada Sa'd da'diisu waxa ay ahayd 17 sano markii uu soo ifbaxay nuurka islaamka waxaana uu ahaa raggii ugu horeeyay ee islaamay wuxuu ahaa midkii ku faana oo yiraahdo waxaan ahaa ay soo martay 7 maalin oo aan ahaa islaamka markii 3 loo qaybiyay qayb kamida oo aniga iyo waxa muslim ahaa waaga rasuulka kadib aniga iyo 2 nin oo kaleeto marka laga tago caruurta iyo adoomanka hadaba daawada Sa'd waxa uu kamid ahaa ragga asaga ee ugu horeeyay raggii soo islaamay ahaa oo kamid ahaa muhaajiriintii oo wuxuu ahaa nin aad u weyn hadaba daawada Sa'd markii uu islaamay kadib waxa qabsatay arin imtixaan ku noqotay taasoo ruux walba maanta hadii ay ku qabsan lahayd aniga naftaantaada imtixaan weyn noqon lahayd Sa'd markii uu islaamay waxa maqashay hooyadii ayaa maqashay deedna waxay tiri miyaad islaamtay oo waa maxay wiilkaygu diintan aad qaadatay oo kaga tagtay diintii aabayaasha iyo hooyada wallahi inaan cunaynin biyana aanan cabaynin ilaa aad diintaada ka laabato oo ilaa aad diintaada ka laabato oo aad ku soo laabato wixii diintii hooyada iyo aabayaasha asnaamtii cunana cuni maayo cabitaan cabi maayo afkayga waxba saari maayo ilaa aan sidaa ku dhinto kadibna carabi ay kugu caabayso oo ay tiraahdo ninkii hooyadii dilay oo meel aad ceeb la istaagto aad wayso Sa'd wuxuu yiri waxaan ku yiri hooyo sida ha sameeynin anigu diintayda waxna kaga laaban maayo sida hayeen deedna way ku adkaysatay hooyo go'aankii ayay gaartay annana waxaan ahaa mid aad baari u ah oo maalin walba daqiiqad walba hooyaday aad baan u jeclaa mana ka agtigi jirin mar walba si walba aan isku dayn inaan ku qancino annaga iyo walaaladay inay wax cunto ama ay wax cabto hooyo waa ay diiday ilaa maalmo ay sida ku sugnaad ilaa ay caatowdo oo xaalad adag ay gasho waxaan ku qasbanaanay mararka qaar inaan hooyo afkeeda aan kala qataarno si aan wax uun jeenana aynu u gelin hooyo waxay halka ku sugnaataba maalmaha kamid markii xaaladii aad ugu adkaatay naf noolna aan ku jirin baan u imid markaas waxaan ku yiri hooyo wallahi aad baan ku jeclahay laakiin Allah iyo rasuulkiisa ayaan ka jeclahay hooyo wallahi hadii aad leedahay 100 naf mid ay u baxaysa 100kaas nafi wallahi hooyo waad dhiman kartaa mooyee inaan diintayda ka tagin raashinka cun ama ka tag hooyo adag u taala aad baan ku jeclaa inta markii aan eriyay hooyo waa ayaabtay waxayna aragtay go'aankayga adeegiisa deedna sida ay raashinka ku cuntay Sa'dna sida ayuu wuxuu kaga baxay imtixaankii Allah subhanahu wa ta'ala
arrinka qabsaday saxaabiga Sacad ibn Waqaas wuxuu ku soo dejiyay aayad kamida aayadaha Quraanka ku jira oo ilaa maanta aynu akhrinayno wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wuxuu yiri Allah haday kugu dirqiyaan inaad ila caabudo ee shirki samayso waxaan aadan aqoon iyo cilmi aadan u lahayn ha ka yeelin adduunyadana walaa kuna dhaqan oo labada waalid hadii ay gaalayihiin xataa waa waalid ku dhalay si macruufa ayaa lagu tacaamulaya hadaba daawadee Sacad inta wixii ka dambeeyay wuxuu kala qayb galay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhammaan wixii uu dagaal galay iyo wixii uu safar galay iyo wixii uu socod galay intaba Sacad wuxuu ahaa midigta rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo marnaba ma aanu ka harin jirin dhacdo uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka qayb galay markii la gaaray dagaalkii Uhud Sacad wuxuu ku lahaa kaalin mugle aad u muuqato wuxuu ahaa mid kamida ninka ruuxa labaad ee muhaajiriin kaga haray rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii la jabay ee muslimiintu ay jabeen waxaad ka warqabtaa dagaalkii Uhud hore ayaan kaga soo sheekayn hadii aadan soo daawan channelka ku laabo soo daabo dagaalkii Uhud markii Abdullah ibn Qama uu shaaciyay uu nabigu waa la dilay muslimiintu waa kuwii jabay waati la cararay rag badan waati Madiina u soo carareen Sacad waxa uu kamid ahaa rag maalinta haray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa ku haray ee aan cararin ayuu ahaa wuxuu ahaa mid nabiga ku difaaca fallaarihiisa oo ninkani wuxuu ahaa nin qatar ku ah ganitaanka fallaaraha lagu dagaalamo iyo leefitaanka cadowga lagu leefo wuxuu ahaa mid aan seereynin haba yaraatay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa la yaabay ninkani sidoo uu fallaarta ugu dagaalamayo iyo sida uusan qofna uusan ula gafaynin fallaarti uu ridaba oo mid gaalada kamida ay ugu dhacayso deedna rasuulka ayaa dhiirigeliyay oo yiri irmi Sacad fidaaka abi wa ummi Sacadow rid oo ku gan hooyada iyo aabahay hal lagu furtay way adag tahay inaad taariikhda ku aragto nabi dhahayo ummadiisa mid kamida hooyada iyo aabahay ayaan kugu furanaya Ali Abi Talib wuxuu ahaa midkii yiraahda rasuulka alla uma kulminin labadiisa waalid illa Sacad ibn Abi Waqaas mooyaan sharafka asagana waxa iskale oo qaatay Sacad ibn Abi Waqaas hadaba daawada saxaabigani waa saxaabi aad u qiimo badan oo cajiib maalmaha kamida ayaa waxa oo arkay nabigu sallallahu alayhi wasallam asoo koox saxaabadiisa kamida la fadhiyo Sacad oo meel xagga ka soo socda ayuu nabigu arkay teedna waxa uu yiri kani waa abtigay midkiin ha itusiyo abtigi Sacad waxa uu ka dhashay qabiilka loo yaqaano Bani Zuhra nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii Aamina bint Wahbna waxa ay ahayd qabiilka asaga oo reer Bani Zuhra ay ahayd sida ayuu Sacad waxa uu ku ahaa nabiga abtigi saxaabaduna waxay ahaayeen kuwa ugu yeera nabiga abtigi hadaba daawada Sacadna wuxuu ahaa kii ku faantama arrinka oo yiraahdo waxaan ahay nabiga abtigi qof walba ayaa ku faantami lahaa maanta nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu qoyskiisa ka soo jeedo oo ay u ka dhashay hadaba daawada Sacad waxa uu ku jiray waardiyaasha khaaska ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam Aisha waxay leedahay rasuulka Allah ayaa habeenada kamida seexan waayay oo walwalay deedna waxa uu yiri ma jira miya caawanin saalixa oo asxaabtayda kamida oo naxaraasay oo nawaardiyay caaw ilaa waxay kadib aanu maqalnay dhawaqa qof soo socda deedna waxa uu noqday oo noo yimiday Sacad ibn Abi Waqaas rasuulka ayaa weydiiyay Sacad maxaa ku keenay xilligan wuxuu yiri waxa igu soo dhacday inaan rasuulka caaw aan waardiyo oo aan xaraasayo rasuulka ayaana u duceeyay oo yiri Allah ducadiisana aqbal leebkiisana الله توسي هذا وده سعد وصحابي جليل أمير المسلمين تحلقاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحا أدوني إنه بدأ أسيبه دولة ويناد reer Faris kadib markii muslimiinta iyo reer Faris dagaal badan u dhaxmaray ayaa ameerikii muslimiinta Umar ibn Khattab waxa uu go'aansaday in uu la dagaalamo boqortooyadii kumanaan sano soo jirtana oo afka ciida u daro si aanay dib daba boqortooyo ayan ugu istaagin hadaba Umar radiyallahu anhu ameerikii muslimiinta xilligaas wuxuu u fariin diray dhammaan ameer kasta oo gobol haysta ayuu fariin u diray taasoo uu leeyahay waxaad ii soo dirtaa qof kasta oo dagaalka wax ka galo ama filaar ku dagaalama ama seef ku dagaalama ama xataa gabya ah oo afkiisa iyo adinkiisa ku dagaalamayo isoo ila magaalada Madiina ay soo galeen ciidan ku dhow 25 kun ciidan ku dhow saxaabadii ayuu la tashaday Umar qofkii ciidanka asaga ah oo u dhiibi lahaa deedna ayagoo iskhilaafin ayay waxay yiraahdeen libaaxa ayaad u dhiibaysaa kaasoo ula jeedaan Sacad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ciidanka hogaamintiisii waxa uu ameerikii muslimiinta xilligaas Umar ibn Khattab u dhiibay saxaabigeena aynu maanta ka waramayna Sacad ibn Abi Waqqas waana uu la dardaarmay oo waxa uu ku yiri Sacadow waxaan ku dhiibayaa mas'uuliyad adag yani ku kadin in lagu yiri abtiga rasuulka in lagu yiri oo nabi maxamed baad abti u tahay in lagu yiri yani ku kadin waxaad ku dhaqantaa wixii aad ka aragtay rasuulka Allah oo ku dhaqmayo arrinka saxda ah waa midkaas Sacad waa u dhaqaaqay waxana uu tagay Qaadisiya Sacad waa hogaamiyaha dagaalka loo yaqaan Qaadisiya oo ah dagaalkii ugu qaraara ee muslimiintu ay galeen taariikhyahanadu waxa ay diiwaan galiyeen inuu dagaalka Qaadisiya yahay dagaalkii ugu qaraara oo muslimiintu ay galeen abid ay galeen dagaalkaasi waxa uu socday afar maalin oo xiriir ayuu dagaalkaasi socday oo aan la kala istaagaynin ilaa maalinta u dambeysay afaraad ay muslimiintu afka ciid u dareen nimankii reer Faris ee dabka caabuday
sidaasna ay kaga takhaluseen dowladoodii kumanaanka sano soo jirtay oo la qaybsan jirtay adduunka oo idilba dowladii Roomaanka ee xilliga jirtay ayaa muslimiintu afka ciid u dareen. haddaba daawade ninkan aynu ka waramayna ee Sacad ibn Abi Waqqas waa ninka qaaliga ah wuxuu ahaa mid mustajaab dacwo ah maalintii Uhud ayaana rasuulka sallallahu alayhi wasallam u duceeyay iyo habeenkii uu waardiyay intaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa u duceeyay inuu Ilaahay ducadiisana aqbalo leebkiisana uu toosiyo oo markuu cadawga ku gamayo aana u la wayn. amiirul mu'miniin radiyallahu anhu Umar ibn Khattab ayaa Sacad wuxuu amiir uga dhigay magaalada Kuufa deedna waa ay ka soo sheegteen reer Kuufa waxay ahaayeen niman dhib badan oo umaradooda ka soo sheegto cidii madax lagaga dhigaba waxay ahaayeen kuwa ka soo sheegto oo ka soo calacala oo Ameerika xilliga jooga ku soo dacweeyay deedna Sacad ay soo eedeeyeen oo ay ka soo sheegteen waxay ku soo eedeeyeen xataa inuusan salaada duka aqoonin deedna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo muslimiinta oo idil amiir u ahaa ayaa waxa uu saaray wafdi oo Basra ayuu u diray waxaanu ku yiri bal soo fiiriya Sacad ibn Abi Waqqas iyo dadka oo amiirka u yahay wax ka dhaxeeya soo fiiriya. haddaba wafdigii masaajidii oo idil iyo dadkii oo idil bay dhex mareen masjid ayayna u mareen dhammaan dadkii oo idilna Sacad wanaag ayay ku sheegeen marka laga reebo hal masjid oo ay lahaayeen niman loo yaqaano Bani Cabsi. masaajidkii markii ay soo gaareen nimankii wafdiga Umar soo diray waa ay wareysteen waxay yiraahdeen bal ka warrama Sacad sidee baad u arkaysaan. deedna mid ayaga kamid ayaa istaagay oo yiri haddii aadna weydiiseen Sacad waa niman marka dadku ay u soo xukuntamaan cadaalad ma sameeyo marka wax la qaybinayna cadaalad uma qaybiyo. deedna Sacad waa uu istaagay wuxuu yiri anigu waan habaaraya ninka asaga dad u dhageysta ilaahayow haddii uu ninkani beenaala yahay oo uu istaagay istustus iyo riyaa oo uu istaagay ilaahayow cumrigiisa dheere ninka asaga ah ilaahayow faqrigiisa badi oo faqiir ka dhig ilaahayow fitantana fidnooyinkana ilaah u bandhig. waxaa la wariyaa ninka asaga ahaa inuu qabsaday habaarka asaga ahaa oo Sacad ibn Waqqas uu habaaray inuu ku dhacay habaarkii oo ninkii waayeel noqday faqiirna oo noqday ilaa magaalada Kuufa lagu arki jiray asagoo inta waayeel duqan noqday dhabarka uu soo qalloocday bakoorad wata labadiisan xaajib ama sunniyihiisuna intay daateen ay ishiisa qariyeen gabdhaha yiriiska magaalada Kuufa dhex marayana oo iljibiya ayuu ahaa oo markii la weydiiyo maxaad u sameynaysaa markii la yiraahdana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay oday waayeel oo ay ku dhacday habaarkii Sacad ibn Abi Waqqas sida ayuu ku jawaabi jiray. markii la gaalay fidnadii u dhaxaysay saxaabada radiyallahu anhu oo saxaabada dhexdooda ay dagaalameen oo Cali iyo Muawiya la isku haystay cidii muslimiinta madax u noqon lahayd ayaa wuxuu cayl la istaagay wuxuu cayn jiray Talha iyo Cali iyo Zubayr. deedna Sacad ayaa ka nahiyay wuxuu yiri waraaninta iska jooji nimanka ayaga waa niman qaali ah muslimiinta qaali ku ah waa reer Badar waana walaaladay niyow ha caayin waxa aflagaadeen faraha kala bax. deedna ninkii waa arintii ayada uu ka joogsan waayay kadib Sacad ayaa yiri hadaba dad ka joogsan wayday walaaladay waan ku habaarayaa ugu ninkii wuxuu yiri manabi baa taa markaad ii goodinayso nimanka ayaga waan caynaya mana daynay. deedna Sacad waa uu istaagay laba ragca ayuu dukaday ilaahay ayuuna bariyay ninkiina waa uu habaaray. waxay taariikhyahanadu wariyaan ninka asaga markii uu Sacad habaaray in awr ama rati meel fog joogay oo orod soo bilaabay dadkii idil oo soo dhex maray oo guriyo idil soo dhex maray ilaa uu ninka asaga ay Sacad habaaray oo u yimiday deedna oo ku dul rabeeyay oo sida uu ku jijibiyay ninkiina uu sida ku dhintay. dadkii intee soo dhaqaaqeen bay Sacad u yimaadeen ilaahay aan lak war Sacad ninka asaga habaartay habaarkay waa uu haleelay oo neef geela ayaa dilo ka takhalusay. haddaba daawade Sacad ninka asaga ayuu ahaa. Sacad waxa uu kamid ahaa 6 nin oo Umar ibn Khattab amiirkii muslimiinta xilligaas markii mididii lagu muday oo waa keenin majuusi ah reer Iran oo ka soo jeeday oo dawladii Farisiinta duntay ka yimiday oo adoon ahaan magaalada Madiina loo keensaday oo saxaabi leeyahay Muqir ibn Shu'ba oo haasin jiray adoon u ahaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amiirkii muslimiinta waa kii salaad subax soo dadka salaada ka bixinaya waa kii toorey la dhacay. Umar markii uu dareemay in geeridii u soo xaadirtay oo dhimashadu ay laga maarmaan tahay ayuu 6 nin saaray. 6 nin wuxuu yiri 6diinu qol gala qofkii muslimiinta hogaamin lahaa iska soo saara. haddaba 6 ayaa kamid ah ma garanaysa daawad 6 ayaga waxa ku jiray Sacad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu oo saxaabigeena maanta aynu ka waramayna ah. sidoo kale Sacad waxa uu kamid ahaa markii fitantu dhacday ayaa waxa lagu yiri miyadan isu arkaynin inaad Cali iyo Muawiya arintan kaga xaq leedahay oo imaarada muslimiinta in la hogaamiyo aad kaga xaq leedahay. wiil adeer oo ahaa walaalkii Cutba ibn Abi Waqqas uu dhalay ayaa u yimid wuxuu yiri adeer waxaan ku hayaa 100,000 oo seef dhammaantoodna arkaya inaad arintan ayada ah oo muslimiinta la hogaamiyo ah aad adigu ku xaq leedahay. yani 100,000 wiil oo dagaalamaya oo arkaya inaad adigu u xaq leedahay inaad muslimiinta hogaamiso ayaan ku hayaa. deedna waxa uu ku yiri 100,000 seef wiilkaygiyo waxaan ka rabaa hal seef oo indha leh oo arkaysa oo markii aan gaalka ku dhuftana kala goysa markii aan muslimka ku ridana ka leexata oo aan dilin ayaan ka rabaa halkaas seef. deedna wiilkiisii markuu arkay inuu adeerkii uu sadan ka lahayn madaxtinimo waa uu isaga tagay oo waa uu ka leexday. Sacad radiyallahu anhu waxa uu kamid ahaa muhaajiriintii qiimaha lahayd ee u soo dagaalantay diintan ayada ah
waxaana uu ka mid ahaa muhaajiriinta qofka ugu dambeeyey ee dhinta ayuu ahaa waxaana lagu duugay magaalada Madiina xabaalaha Baqiic ee saxaabada intooda badan ay ku duugan yihiin ayaa lagu duugay radiyallahu anhu Allah ka raali noqdo markii geeridii u soo xaadirtay ee uu dareemay Sacad inuu adduunyada sagootinayo ayaa waxa uu u yeeray jaakad uu lahaa oo baaliyowday oo duq noqotay oo meel tiile ayuu u yeeray wuxuu yiri jaakada ayada ha la ii keeno markaan dhintana ha la igu kafano oo godka ha la geliyo sababta markii la weydiiyay waxa ku jawaabay wuxuu yiri Badr ayaan kaga qayb galay oo dagaalkii Badr ayaa mushrikiintii kula kulmay waxaana jeclahay in qabriga la gasho oo marqaati ay noqoto maalinta qiyaamo hadaba daawada intaas ayaan kusoo gabagabeynaa taariikhda kooban ee aynu ka taariikhoonay saxaabiga weyn radiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas hadii aad halkan soo gaartay aad baan kugu mahad celinayaa daawashada muuqaalka daawatay la soco bareena bulshada taariikhda show ku qor halka isaga nagala soco aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xiga